Jubaland, we take note of the recent developments that saw the Jubaland leader and Ogaden opposition figures. Jubaland waxaan ka taxadaraynaa wixii horumar ah ee dhowaantan dhacay kaasoo ahaa in hogaamiyaha Jubaland iyo mucaaradka ogaadeen ay gaaraan heshiis horseedaya is-aqoonsi iyo wada noolaansho. kani waa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madera oo shirkii golaha amniga qaramada midoobay oo toddobaadkii hore ku dhacay hab maqal iyo muuqaal ah oo uu kaga hadlayay arrimo kala duwan waxaana ugu weynaa heshiiskii dawlad goboleedka Jubaland iyo golihii isbedel doonka ee ka dhacay magaalada Nairobi waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu dhaxeeyay hal beel taas oo ah markii ugu horeysay ee mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed lagaga hadlo shirka golaha amniga ee qaramada midoobay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay in wakiilka midowga Afrika uu ku milmay arrimaha gudaha Soomaaliya isagoo si gaar ah u magac dhabay beel Soomaaliyeed isagoo sida uu hadalka u dhigayna aanay ahayn mid sax ah wuxuu sheegay madaxweyne ku-xigeenku in heshiiska dawlad goboleedka Jubaland iyo golaha isbedel doonku yahay mid siyaasi ah oo dhinacyo kala fikir duwan ay ku dhameynayeen kala aragti duwanaanshaha u dhaxeeyay isla markaana aanay ku lug lahayn qabaa'ilada Soomaaliyeed jawaabteeda marka waxa weeye arintaasu midowga Afrika magaciisa ku hadlayo wakiilka ma qabato in arrimaha gudaha ee Soomaaliya ka hadlo dawlad goboleedka Jubaland doorasho qabatay doorashadii tabasha ka dhalatay waxaa loo howlgalay wax kasta oo tabasho doorashadaas ka dhashay in si dib u heshiisiin ah wada hadal ah lagu xalliyo waqti dheer baa la siiyay tabashooyinka dhashay dhinacii hogaaminayay oo madaxda ka ahaa hogaamiyaashii midowga musharaxiinta hogaamiyaashii u tartamayay madaxweynenimada ee saluugay qaabka ay wax u dhaceen waqti dheer ayay dawlad goboleedka Jubaland wada hadal kula jirtay waa ugu mahad celinaynaa aakhir inay u tanasuleen shacabka reer Jubaland iyo nidaamka Jubaland hogaamiyaashaas oo honorable Cabdirashiid Xidig uu hadda nagala joogo Cabdinaasir Seyraar ka mid ahaa iyo kuwa kale oo fara badan oo maalinba la gaarayay in la wada hadlo la isfahmo ummadda ay u tanasulaan waxay xambaarsanaayeen aragtidii naga soo horjeeday dhammaan ayaga hogaaminayay ayaga madax ka ahaa ayaga madaxweynaha isku soo sharaxay ayaga marka dambana taageerayaashoodii u doorteen madaxtinimada waxay marka matalayeen ummadda reer Jubaland oo ka biyadiiday doorashadii oo dhinaca naga soo horjeeda ahaa ma ahayn wax qabiil ku saabsan ma ahayn wax ku saabsan maxay ahayd aragtiya hoose waxay ahayn hogaamiyaal xambaarsanaa fikirkii naga soo horjeedo haddaanu heshiinay beesha caalamka waa ugu mahad celinaynaa inay ka jawaabtay soo dhaweysay ku faraxday nagu dhiirigelisay inta dhimanna inaan dib u heshiisiintaas geed walba u fariisano ambassador marka Madeer xagee kaalinta ka soo galay maxaa keenay inuu ku farxi waayo maxaa keenay inuu hambaliyeyn waayo maxaa keenay inuu si kala u dhigo heshiiska qiimaha badan ee ummadda reer Jubaland iyo hogaamiyaasheeda ku guuleysteen wax la yaab leh weeye waa arrin u baahan baaritaan dheer waa arrin u baahan in laga jawaabo waa arrin u baahan dawladda Soomaaliya iyo labada gole ee baarlamaanka inay ka jawaabaan waa arrin u baahan inay beesha caalamka ka jawaabto waa arrin u baahan inuu raaligelin ka bixiyo kana tago positionku maanta joogo uma qalmo runtii uma qalmo nin diblomaasi oo heerka ah sidoo u hadlay si uu qalmo ma intaan la xisaabinin inuu is xisaabiyo maanta uu raaligelina ka baxa halkaan iskaga taga ayaan u soo jeedinaynaa wakiilka midowga Afrika u jooga Soomaaliya hay'ad marada ka dhacday waxa Allah wax ku xambaari garan mayno dawlad goboleedka Jubaland ayadoo ku dhaqmayso dastuurka iyo shuruucda dalku degsan gogashu waa fisan tahay sida honorable Cabdirashiid Xidig uu sheegay cid kasta wax tabanaysana waa la firiisan waana la qancin maxaa yeelay waxa wada leenahay cidna kama lihin kalsooni iyo wax wada dhis
ayay mabaadi'deeda ku dhisantay marka iyadoo nuxurka bareeska iyaga uu xambaarsan yahay warqadda aad arki doontaan waxaan aad iyo aad mar labaad ugu xunnahay sida uu dhaqmay iyo habdhaqanka midowga Afrika wakiilka u jooga Soomaaliya waxaan marka ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa la yidhi hadday wax koro yimaadaan wax hoosaad waa la dhigaa war wixii annaga iyo adigaan isku haynay waa waxaan wada leenahay wax hoosaad weeye fargelin koraad timid oo sharafta Soomaaliya dhaawacaysa jawaab ka bixi sidaad kuwa horeba jawaab ugu bixiseen idinkoo magaca Soomaaliya difaacay jawaab ka bixi haddii kale waxay kaa hadlayn doontaa wixii hore aad ugu tilaabsatay oo si kale ummadda Soomaaliyeed aad ugu sharaxday aad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kale xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo dhankiisa arrinkan ka hadlay ayaa sheegay in falka uu ku kacay ambaasador Madeera uu yahay mid ka baxsan anshaxa midowga Afrika isla markaana si meeqaamkii midowgu u soo noqdo ay baaritaan ku sameeyaan arrinkan isla markaana ay tallaabada ku habboon ka qaadaan waxa uu intaas ku daray xildhibaanku in ay galdacwadeed ka furi doonaan meelo kala duwan si maxkamad ay ula tiigsadaan ambaasador Madeera oo furay jid cusub oo lagu bartilmaameedsanayo mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxaana dhammaan dadka beeshan ka soo jeeda uu ugu baaqay in arrinkaas ay u istaagaan ninka u qaabilsan African Union Soomaaliya xadgudubka uu sameeyay ma aha mid la aqbali karo waa markii koowaad ee United Nationska Security Council laga sheego qabiilada Soomaaliyeed ka mid ah magaciisa communitygaas meel kastoo ay joogaan waa community Soomaaliyeed waa lagu xadgudbay waana albaab ay doonayaan inay furtaan dadka doonaya Soomaaliya inay ka macaashaan ee ajaanibta sidaas darteed ummadda Soomaaliyeed political partieska dawladda Soomaaliya baarlamaanka iyo cid kasta waxaan u soo jeedinaynaa hawshaas in tallaabada ku habboon laga qaado ma aha luqad lagaga hadlo United Nationska ama Security Councilka in qabiilada qaarkood halkaas lagu soo sheego xaq wuxuu u leeyahay qabiilka halkaas lagu sheegay magaciisa in ay dacweeyaan furaan court maxkamado ay ku soo gareynayaan cidda hawshaas ka dambeysay gaar ahaan African Union Mission oo Soomaaliya AU in loo isticmaalo arrimaha siyaasadda Soomaaliya la saftaan siyaasada gaar ah la saftaan qabaa'ilo la saftaan kooxo waa markii koowaad oo ay dhacdo waxaan u soo jeedinaynaa in tallaabada ku habboon laga qaado si loo safe gareeyo magaca African Union ayna u soo noqdo credibility iyo neutrality lagu qabay sida ay u soo noqon lahayd waxaan rabaa baarlamaanka Soomaaliya inay door muhiim ah ka qaataan hawshan sidii loo gaarsiin lahaa meesha ay mudan tahay Francisco Madeerana wadanka looga saari lahaa sidii diblomaasiyiinta ka horreeyay oo sameeyay wax ka sahlan waxa uu sameeyay Madeera waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo way jiraan siyaasiyiin ama politicians Soomaaliyeed oo maxaan ku dhahay reer Jubbaland oo concern qaba waana albaab furan oo aan raadinayno inaan cid kasta oo Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ay qayb ka noqoto dib u heshiisiintaas albaabku waa furan yahay waana sii wadaynaa inaan cid kasta waana isu iman doontaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan rabaa abiilkayga kale inaan u diro madaxweynaha dawladda federaalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo saaxiibkay waxaan rabaa inaan u soo jeediyo inuu qaato doorka kaga aadan hogaaminta dalka isu keenidda xilligan adag ee doorashooyinka heer federaal loo dareerayo xilligan adag ee wadanka corona ka jiro caafimaad ku liito xilligan adag ee fatahaaduhu jiraan waxaan u soo jeedinayaa in uu qaato leadershipkiisa hogaamineed uuna isu keeno shacabka Soomaaliyeed ciddii maxaan ku dhahay wax kala tabanaysa waxaan u soo jeedinayaa inuu ka hortago sidii horeba uu sameeyay oo uu maxaan ku dhahay diblomaasiyiin dalka uga saaray inuu si degdeg ah dalka uga saaro Madeera uu si degdeg ah uga saaro isagoo gudanaya waajibaadkiisa qaran taasaan u soo jeedinayaa reer Jubbaland waxaan u soo jeedinayaa inay gacmaha isqabsadaan ma dhici karto in ajaanib soo faragelisay ay wax u dhinto
ma dhici karto inay cid kale ay faragelin ku samayso reer Jubbaland meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay isu yimaadaan oo ay xalliyaan waxyaabaha dhexdooda Jubbaland maamulkeedana waxaan u soo jeedinaynaa inuu albaabku furnaado ayna raadiyaan qof kasta oo meeshii loogu talagalay ay ku raadiyaan haddii alla yidhaahdo waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan dhammaantiin faylka maxkamadda Madeerana iyo African Union waa in laga furaa meel kasta oo ay joogaan community-ga magacooda lagu mention gareeyay Security Council waa in maxkamadda la furaa biilkaasaan u soo jeedinayaa ka codsanayaa community-gaas si aysan u noqonin albaab furmay oo maxaan ku idhaahdaa Soomaali loo wada isticmaalo maalin walba aan qoys meel gaar ah la gelin aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh